taliyaasha colalka madaxa bannaan guud ahaan saraakiisha kale ee guutooyinka iyo ururada ka socda iyo saaxiibada kale halkan nala jooga saraakiisha xeer ilaalinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan rabaa kaliya inaan dhowr qodob oo kale ku daro inta taliyaashu ka hadleen siina xoojiyo iyo taliya xigeenku inta uu ka hadlay. waxaan la soconaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhacay oo runtii aan dareemi karno awaaqibkooda waxa uu noqon karo iyo waxa ay keeni karaan iyo waxa ay u dhimi karaan sharafta ciidanka iyo qiimka ciidanku leeyahay. waxaan la soconaa magaalada waxa ka socda dhac, waxa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo kamidu ay gashan yihiin dareeska ciidanka, qaybo kamiduna ay yihiin ciidanka, meelo kamidana muxuu ahaa runtii qaybo kamiduna ay ciidanka yihiin. maadaama dhacdooyinka dhacaya yaas sida taliya ciidanka cirku u sheegay hay'adaha ku shaqale hay'adaha amniga gudaha ka shaqeeya hadday noo baahdaan oo ku gacan siinaynaa, laakiin meesha ay naga soo gashay ee saaka aan halkan isugu nimid xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sidana aan halkan aan uga codsanay inay nagala soo qayb galaan oo shirkan yimaadeen gudoomiyaha insha Allah la hadalnay waxay tahay mar haddii wax lagu geysanayo ay dareeska ciidanka yihiin waxay meel ka dhac ku tahay ciidamada qaranka. waxa la aqbali karo waa wax ceeb iyo fadeexada qof kasta ee uu qof tuutaha gashan oo dhac u geysto qof shacab oo dareeska gashana ay dhacay male xitaa qof dareeska gashana ay dhacay kuma ekaysanaayo ama idila kuma ekaysanaayo. wuxuu leeyahay ciidanka dawladda oo tuutaha dawladda wata ayaa dhacay idilay. taas waxay meel ka dhac ku tahay sharafta ciidanka, waxay meel ka dhac ku tahay waqtiga aan bixinaynay iyo guud ahaan waajibaadkii iyo mas'uuliyadihii aan u haynay qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadeena. sidaas awgeed waxaan hor yaalla oo laga maarmaan ah waxay tahay sideen xal ugu heli karnaa, sideen u maaray karnaa, sideen meesha uga saari karnaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah, sideen meesha uga saari karnaa dareeskii ciidamada in lagu dhibaateeyo bulshada oo sharaftii ciidanka meel looga dhaco. waxaan isu nimaday hay'adaha kale amniga waa wada fadhiisanay waa ka hadalnay waxaan isu sheegnay qaybaha ayaga quseeya iyo talaabaha ay tahay in ayagu qaadaan iyo qaybaha anaga na quseeya iyo talaabaha ay tahay inaan anagu qaadno. maxay yihiin marka talaabaha inaan qaadno ay tahay mar haddii waxa laga shaqeynaayo ay amni yihiin, mar haddii waxa laga shaqeynaayo ay yihiin muxuu ahaa ii sheegay magaalada intaasoo bulsho ay ku nool yihiin, mar hadday waxa dhibka lagu geysanayo ay yihiin dareeska ciidanka wuxuu qayb ka yahay amni darradii magaalada. waxaan u baahanahay marka oo lagama maarmaan ama aan aragnay mas'uuliyadaas inay tahay mas'uuliyad anaga dib noogu soo noqonaysa cidda noogu sarreysa iyo cidda noogu hooseysa. waxaan dareenay wax badan inaan amar ka bixinay haddii aad xusiisataan wareegtooyin aan hore u qornaa jirtay oo aan leenahay xubin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed darees iyo hub kala ma bixi karto xiradeed. shalayna haddana mid kale aan qornay waa ku celin cidda ay soo gaartana way soo gaartay, cidda ay soo gaarina way soo gaari doontaa. waxaan rabaa arintaas si cad inaan isu soo hor istaagno, isu sheegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ay goobjoog ka ahaato, awaaqibka ay dhashana qof walba mas'uuliyadda inta ay ku leedahay inay ka qaadato berrito. waxaan leenahay marka si loo yareeyo amni darrada magaalada ka socota, si loo ilaaliyo sharafka dareeska ciidanka, si loo dhiso kalsoonida bulshadeenu ay ku qabi karaan ciidanka. because dareeska ciidanka haddii lagugu dhibaateeyo adigu waxaad aaminsan tahay nin shacab oo xaafadiisa ka soo kacay marka aad tahay ama xaafadiisa loogu yimid aad tahay waxaad aaminsan tahay mar haddii dareeska wax lagugu geesto cidda ku dhibaataysa inay ciidanka tahay. waayo dareeska cidda wadata ciidanadu aqoonsan tahay xubin kasta halkaan fadhis unitku doon ha joogo ka bilow taliska guud ilaa hoos u daadaji talisyada noocyada ciidamada ilaa unitka ugu hooseeya laga bilaabo maantay
ma doonayn askari xooga dalka Soomaaliyeed oo suuqa lugaynay oo magaalada iyo xaafadaha iyo laamiyada lugaynay ee darees iyo hub isku wata inaan aragno ma rabno waxaan rabnaa in la xakameeyo waxaan u baahanahay in loo xakameeyo si buuxda gabiyahanba oo meesha ka baxdo haddii ay dhacdo xitaa haduusan wax dhicin xitaa haduusan fal gacanta kula jirin waajibaadkan iyo amarkan haddii la bixiyo ee ay gaarto ee uu fuli waayo ee ay dhacdo in suuqa lagu qabto asigoo dareeskii iyo hubkii ku wata magaalada dhexdeeda wuxuu la mid yahay kii wax dhacay waxay nooga dhigan tahay xeer ilaalintana way joogaan maxkamadda way joogtaa waa u sheegnay waxay nooga dhigan tahay qofkaas inuu u baxay inuu qayb ka noqdo amni darrada magaalada ka socota waxay nooga dhigan tahay in uu u socday inuu fal geesto waa ognahay dhibaatooyin badan jira ciidamo ayaa waxay jiraan furmaha waa dareemi karnaa xaaladda jirta ma dhihi karno furunta uu ka soo tagayo qorigiisa hadhigo xaaladda jirta awgeed because wadada uu soo maraya abni ma aha wuu ku qasban yahay inuu furunta qoriga ka soo qaato laakiin waxaan u baahanahay taliyaha halkan jooga iyo taliyaha unitka laga soo fasaxay qofkaas inay coordination ka dhaxeeyo inay wada xiriirayaan inuu yiraahdo 5 askariyaan soo fasaxay saacadaas oo soo fasax habelay soo galay marka ay soo galaan ma aynaysan xaafadahoodii aadin taliska xamar ugu yaala waa inay yimaadaan waa inay hubka dhigaan waa inay dariiska dhigaan kadibna waa inay xaafadahooda aadaan